barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar mudane Nuur Qaasin Qodax oo uu heliyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Xasan Ismaaciil Yuusuf Gacmayre ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismo kantarool shirkadda Asli Meedi ay ka dhisayso degmada Waridaad ee gobolka Saraar. Dhismahani oo ka kooban 2 qol oo lagu talagalay dawladda hoose iyo ciidanka booliska iyo barkad biyood. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee shirkadda Asli Meedi Maxamed Ismaaciil Axmed oo faahfaahin ka bixiyay dhismahan maanta ay ka hirgelinayaan degmada Waridaad. xogayaha guud ee shirkadda Asli Meedi halkan maanta waxaan ka dhagax dhigaynaa kantaroolkii degmada Waridaad ee gobolka Saraar. kantaroolkaas oo ka kooban 2 kaabadood 2 qol iyo barkad oo aan haddana shirkadda Asli Meedi ku deeqnay. waxaan aad iyo aad uga shaqeynaa arrimaha bulshada, arrimaha amniga oo tani koow ka tahay arrimihii amniga. sidaa daraadeed waxaan markiiba uga soo jawaabnay hadday degmada tahay hadday maamulka gobolka tahayba inaan kantaroolka kala qayb qaadano bulshada reer Waridaad iyo bulshada reer gobolka Saraarba. sidaa daraadeed maanta waxaan ka dhagax dhigaynaa kantaroolkaas oo ah bartamaha Somaliland ee qaybiya bariga galbeed. barasaab ku-xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasin Qodax taliyaha qaybta booliska gobolka gaashaanle dhexe Xasan Gacmayre maayirka degmada Waridaad Cabdiqani Salmaan Gaas iyo qaar kamid ah bulshada kala duwan ee deegaankaasi Waridaad ayaa dhamaantoodba soo dhaweeyay dhismaha ay u hirgelinayso shirkadda Asli Meedi oo ay tilmaameen in dhismahani yahay mid baahi weyn u qabeen bulshada deegaankaasi. marka hore Ilaahay weyn mahad dhamaantii iskale waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa shirkadda Asli Meedi iyo shirkadda Asli Meedi oo ka soconayo xogayaha Maxamed oo iyaguna halkan codsi aan hore ugu qoray oo ahaa inay rugta bilayska ay noo sameeyaan kaasay si degdeg uga soo jawaabeen saakan aynu dhagax dhiggeedu joogno. waxaan kaloo halkan mahad ballaaran ugu celinayaa gudoomiyaha shirkadda Asli Meedi Barkad isagana aan leeyahay jazakallahu khayran jazaa horumarka iyo waxqabadka dalkaaga iyo dadkaaga uu qabanayso Ilaahay aadna ka jazaaysi leh iminkana Asli Meedi iyo taliyaha ciidanka iyo barasaab ku-xigeenka intaba Ilaahay baa mahad leh waa u mahadnaqaynaa. waxaan ugu mahadnaqaynaa waxqabadka ay horumarka ee ay doonayaan waxbarashada. waxaan maanta halkan u mahad celinaynaa Ilaahay baa mahad leh shirkadda Asli Meedi ee ka shaqeysa danaha bulshada hadday amni tahay hadday waxbarasho iyo hadday dhaqaale kale ay ku soo kordhisaba tahay. shirkadda Asli Meedi oo maalgelinaysa ama dhisaysa 2 qol iyo 2 kaabadood ee kantaroolka iyo barkadii intaba. kantaroolkan oo ay ka howlgeli doonaan ciidanka booliska iyo dawladda hoose oo lagu guri doono cashuurihii dawladda. aad iyo aad baan odayada dhulka bixiyay iyo shirkadaba ugu mahadnaqaya. arrin aad iyo aad muhiim ah Waridaad waa bartamaha Somaliland. waxa halkan maanta aanu dhagax dhignay oo shirkadda Asli Meedi ay halkan u quudhay oo maanta ay dhagaxii horeysa dhigtay berina dhismaha la bilaabaya 2 guri 2 qol oo qol ay leedahay dawladda hoose qol booliisku iyo 2 kaabadood ee checkpoint ahaa. taas waxay sheegaysaa in maanta ay Asli Meedi noqotay tii u horeysay ee ka soo jawaabta codsigii deegaanka ka codsaday in ay arrinka loo qabto. waxaan leenahay Waridaad waa degmo curdina waa degmo imika ballaaran oo ballaaratay oo intii degmanimada la siiyay way fiday aad iyo aad bay u fiday. codsiyadii hore waxa ka soo jawaabay jaamac Maxamuud Aan Jaac Karaacin oo dugsiga secondary-ga dhisay. jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Somaliland aynaba